Sudwatin warbixintan waan uga hadli doonaa aaladda lagu magacaabo TikTok dhibaatada halkaasi Soomaalida ku haysato iyo waxyaabo badan macluumaad ku saabsan mar aan soo qiimeeyay bartaasi iyo xog ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa haddaba idil ahaantiina ku soo dhawaada warbixintan run ahaantii aaladdaasi lagu magacaabo TikTok ayaa waxaa isticmaala dadyo kala duwan oo qaaradaha dunida ku kala nool wadamo badan iyo mujtamacaad badan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaladdaasi ku xoomaysay oo isticmaalaan oo isugu jira rag iyo dumar dad waaweyn dad yar intaba haddaba waxaan ku soo aragnay goobtaasi falal aad u yaab leh waxaad arkaysaa dad aad u waaweyn oo sameynaya falal aan ku wanaagsanayn qofka muslimka ah run ahaantii waxaan halkaasi ku soo aragnay dad badan oo dadkii ayagoo waxyaalo comedy ama shactar ah soo jeedinaya qaarkood la beegsanaya commentiya ay maskaxdooda ka sii guuxdo saameyn buuxdana ku yeesha ayna ka falceliyaan fiidiyoyaal kale oo jawaab u ah kii hore u baxay dadka fiican waxaa ka daran kuwa commentiyada aflagaadada ugu soo gudbinaya halka ugu reebaya waxaad arkaysaa haween badan oo jirkoodii qaawiyay si ay ugu soo caanbaxaan bartaasi isla markaasna magac ay ugu sameeyaan kuwa caynka ayagana waxaa loo qoraa commentiya aad u yaab leh oo argagax leh halkii laga waanin lahaa lagu soo jiidan lahaa iyo waxyaalo aad u qurux badan loo qoray lahaa waxaad arkaysaa dad badan oo halkaasi u bixiyay commenti ku dhigliyaan sababtoo ah waxay u geysanayaan aflagaada aan loo meeldayn taa oo saameyn buuxda ku yeelatay qofkii waxaad arkaysaa haween iyo rag badan isqabay oo bartaasi soo dhigi jiray durbana kala tagay sababa jiray agood commentiyo loo qoray oo la dhahay hebel kuma qalmo ma adigoo sidaan u weyn baa heblaayo guursatay ma ayadoo sidaas adoo saas u yar miya guursatay nin la leeyahay naagtu way ka daaweyn tahay iyo waxyaalo kaleeto oo tafaraaruq aad u baahsan dhalinaya waxaa dadweynaha lagu baraarujinayaa inay joojiyaan dadka xaasaska ama familiga inay barta ku soo bandhigaan sababtoo ah waxaa jira caqabado ay u dul qaadan karin Soomaalidana waa dadka commentiga ugu daran marka la fiiriyo si kulul dadka ula hadla aflagaadana u geysta sidaa daraadeed ayay dadku aad u la yaabeen qaarkood waxa ayna soo duubaan fiidiyoyaal qaarka halka kalena ay yihiin qaar aan bajirinba sababtoo ah waxa ay soo dhigaan falal iska dheeldheel ah oo aan wax murti ah iyo wax saameyn aan yeelanaynin kaliya jirkooda la qaawiyo horaadkooda oo la soo muujiyo qayb ka mid ah iyo waxyaalo aad u falxun ay ku soo bandhigaan waxaa jira qaar badan oo ku soo gudbiyo farar macluumaad baahsan ah oo dadka si ay ugu helaan waxyaalo cashiro ah iyo waxyaalo kala duwan oo waanooyin ah si bartaasi ay u isticmaalaan oo ay ugu soo gudbiyaan qaarkaasna way jireen qaar badan oo magac ka sameeyay siyaabooyin kala duwan marka loo fiiriyo qaarka aan maaragta saameynta lahayn kuwaasi ayagu ma ahan dad aad iyo aad u soo bandhiga waxyaabo dadku ay ka diidaan laakiin waxay soo dhigan kaliya waxyaalo shactar kooban ah oo dadku qaar ayaa u adeegsada dhanka iyo in ay ku soo gudbiyaan waxyaalo macluumaad oo la isdhihi karo qaarkaasi waa qaar faa'iido leh oo ayagu ay u arkeen in barnaamijyaasi ay yihiin qaar dhanka ku saabsan horumarka oo kaleeto qaar shactirooyin ama sheekooyin soo jiidasho leh oo bartaas ku soo bandhiga ayagana qaarkaasi aad ay wanaagsan yihiin ma ahan in bahalkan aad ka fahantaan in kaliya si qaldan loogu soo aanbaxo waxyaalo dhaqanka iyo damiirka dadnimo intaba aan wanaagsan ku soo gudbiso taas waxay dhalinaysaa in burbur ku yimaado haddii ahayd qoys ama family wanaagsan intaba warbixintan intaasi ayaan ku soo gudbinaynaa waxaan rajaynaynaa in muuqaalo aan ka soo gudbina ayaan doonayn hase yeeshee lagama soo gudbin karo oo qaarkood waxaa arki kartaa sawirro aad iyo aad yani u yaab leh inay yihiin oo aan la soo qaadan karin janalku wuxuu ahaa Dooxa Media intaas ayaan ku soo